كهوريسيو حريد عصب كراحيستا وقتيدن عسوي وهاجا صحابتي بني سلامية ميل كستو جوجتان si walba waad noo dhegaysanaysaan waqti walbo ay ku tahay waxaan ku leeyahay wanaagsan salaanta ugu qiimaha badan ee la isku salaamo ayaan ku salaamayaa oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu markaas kadib haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad channelkan eegayso amaba aad daawanayso muuqaalkan fadlan walaal macaan marka ugu horeysa adoon wax kala samayn like-ta nagu caawi like-ta maqaayadda waa lagama hadlaan subscribe-kana nagu caawi markaad dhammaysatid muuqaalkana fadlan walaal macaan fikirkaada quruxda badan nala wadaag fikirkaada adduunka dhan buu bedeli karaa waa hagaag haddii aad xanuunsan tahay waxaan alla jalla wacala kaaga rajeynayaa inuu caafimaad ku siiyo haddii aad caafimaad qabto waxaan ilaahay kaaga baryayaa jalla wacala inuu caafimaad degdega ku siiyo haddaad ilaahay kuma darnaadee murugo iyo barnaamijyo ay ku haystaan ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu barnaamijkaada kuu fududeeyo wax walboo ku haysto waxaan ilaahay kaaga baryayaa in uu sida aad rabtay kuu siiyo intaasi waa sunno mu'akid ah oo dadka muslimiinta ee walaalaha xaq isugu leeyihiin inay isku duceeyaan mar walba iyo meesha walba ay joogaan anyway maanta waa another level inta badan aniga ma jecli heesaha kale iyo inaan reaction ka bixiyo I don't like that and it's not my actually favorite thing to do laakiin mararka qaar wixii necessary ah oo muhiim waa muhiim our legend our singer none other than Hawale oo actually ah ninaan u arko markaan xataa maxaa la jiray markaad ku jirtid industry-ga ama maxaa la dhahay warshada qaybahan maxay fanka Soomaalida qof walba qof buu taageeraa horta Cawaale aniga wuxuu ka mid yahay dadka favorite singer-kayga uu ka mid yahay Cawaale legend waaye nin shalay daraad ku soo biiray fanka Soomaalida ma ahan waxaan halkaan hambalyo bogaadin leh oo ka dirayaa walaalkay Cawaale fanaankeena qaaliga ah iyo Miss Xiis oo arooskoodu ka dhacay lagana tumay magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida ee dhankaas Ethiopia adban actually ugu hambalyeynaa waxaan leeyahay congratulations upon that great wedding that took place in Jigjigo waana ku faraxsanahay laakiin hal arrin jirto wuxuu kaloo sameeyay actually hees fiican uu ka qaaday masha Allah waxaa kaloo dhacday in arooskiisa uu noqdo aroos caalami ah laga soo qayb galo fanaaniinta Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka maxaa la jiray magaalada Jigjigo way u kala kiciyeen odayga laakiin hal arrin baa la yaab leh oo aan aniga I don't know maybe inaad adilkaada fikirkan la wadaagaysid qof walba oo tago magaalada Jigjigo waa inuu guursado guurarkii ugu dambeeyay gaar ahaan dadka fanka ku jiro wuxuu guurarkooda ka dhacay magaalada Jigjigo deegaanka Soomaalida Ethiopia uu ka dhacaa marka dadka qaar waxay dhaheen min weyniyada Jigjiga aad ay ugu daran tahay haddaba haddii odaygaada hadda uu ku joogo uu ku dhaho Jigjiga aada jooji haddii islaantaada ay ku tiraahdo maxaa la jiray Jigjiga aada joojiya barnaamijka Jigjigo waa la isaga dabayay Jigjigo meesha Jigjiga ahayd waa la isaga dabayay waxay noqotay meel oo Ilaahay kuma daraaday another level anyway burku ma xumo burku waa inaan bogaadino diinta islaamkana waa faraysaa in la bogaadiyo la weyneeyo qofka markuu guursado walaalka waa inuu hambaliysid markuu xanuunsan yahay waa inuu u duceysid markuu geeriyoodo waa inuu u duceysid markay arrimo jiraan waa inuu waxaysid waa responsibility waa mas'uuliyad adig ku saaran waay marka waan maxaa la jiray waa u hambalyeynaa walaalkeen Cawaale oo runtii ah fanaan Soomaaliyeed qaalina nagu ah aniga ahaan Ismaaciil ahaan that guy wallahi waa my favorite singer way among Somali singers wana xaqiiq marka waan ku faraxsanahay runtii arooska wuxuu dhacay maantay oo ka dhacay magaalada Jigjigo waa jeclaa in reaction kan dhaqso aan bixiyo laakiin maalinkii oo kale I was quite busy I'm just quite busy with work laakiin markaan xaafadda imaado that is the time I'm supposed to give you what I have marka aad baa idin salaamay fadlan Soomaaliya meel walba joogtaan waxaan idin ka codsanayaa haddii YouTube kan YouTube ka soo qaaday video adiga ku keenay mobilkaada ku keenay inaadan naga dhaqoolin like-ta iyo subscribe-ka
labadaas yaana ka wada hadlay Soomaali Maxamed Soomaalnimo hadii jirto like iyo subscribe ha iga wada hadashiinina labadaas inaan ka wada hadalno waa qalad waa maqaayad maxalli baash lagu shiday anyway guys qeyr badan baa idin rajeynaya maalinka haydin wacnaado habeenka haydin wacnaado galabka haydin wacnaado xilli kasto ay tahay ku wacnaado waa walaalka oo ku dhahayo I love you so much guys one Somali one love